Bismillahirrahmanirrahim ismaqal wanaagsan ku soo dhawaada daawadayaal warka halku dhig news qodobada ku daawan doontaan waxa kamid ah askar ka soo baxsatay Axmed Madoobe oo ka soo lugayay Kismaayo soo gaaray Muqdisho taliyaha xabsiga dhexe Muqdisho oo bukaan kala soo baxay mid kamid ah isbitaalada Muqdisho iyo bukaankii oo geeriyooday iyo xildhibaano fara badan oo ka tirsan Jubbaland oo soo gaaray Muqdisho iyagoo dacwad ka Axmed Madoobe haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta oo aan channelkan soo gelino taariikhdu waxay tahay 17 bisha December sanadka 2019 intaad maqasheen oo faahfaahsan ku soo dhawaada daawadayaal taliyaha xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho ayaa bukaan kala soo baxay mid kamid ah isbitaalada Xamar taliyaha xabsiga dhexe sareeya guuto Maxamed Sheekh Xirsiile ayaa lagu eedeeyay inuu mid kamid ah isbitaalada ku yaala caasimadda Soomaaliya kala soo baxay bukaan xabsiga dhexe ku xanuunsaday oo ay dhaqaatiirta xabsiga dhexe sheegeen in aanan waxba looga qaban karin isbitaalka ku yaala gudaha xabsiga qoyska bukaankan ayaa sheegay in taliyaha xabsiga dhexe oo adeegsanaya awood ciidan uu xoog ku galay isbitaalka oo bukaanka jiifay waxayna sheegeen inuu bukaanka ku qaatay mid kamid ah gawaarida gargaarka oo laga leeyahay xabsiga dhexe isla markaasna ay ku buufsan tahay calaamadda ciidamada asluubta bukaanka oo lagu magacaabi jiray Xasan Kurtun Calasow oo ku jiray xaalad halis ah isla markaasna kooma ku jiray ay qoysku bukaanku sheegeen inuu taliyaha amray in laga furo koomada isla markaasna dib lagu celiyo xabsiga dhexe qoyska bukaanka oo muuqaal ka duubay marka uu taliyaha falkan sameeyay ayaa muuqaalka ka dhex sheegay waqtigaas inuu taliyaha awood u sheeganayay isla markaasna uu isaga qaadi doono mas'uuliyadda bukaankan haddii uu dhinto 24 saac kadib bukaanka ayaa ku dhex geeriyooday xabsiga dhexe Muqdisho waxayna qoyska marxuum ku sheegeen in aanan la duugi doonin inta sharciga laga horkeenayo taliyihii sababtu u ahaa in isbitaalka laga soo saaro qoyska marxuumka ayaa dawladda ka codsaday in la soo qabto taliye Xirsiile isla markaasna laga qaado garaadaha u xiran lagana qaado magdhow marxuumka geeriyooday ayaa ku xukunaa ilaa 8 sano wuxuuna xabsiga ku jiray muddo 3 sano iyo bilooyin ah taliyaha xabsiga dhexe wali kama jawaabin eedeymaha loo jeediyay maantay xildhibaano dacwo ka ah Axmed Madoobe ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho xog ay heshay caasimadda oo warkan daabacday ayaa sheegay in xildhibaano ka tirsanaa baarlamaankii hore ee maamulka Jubbaland ay maalmihii la soo dhaafay soo gaareen magaalada caasimadda ah Muqdisho xildhibaanadan oo tiradooda gaaraysa 40 mudane ayaa dacwo ka ah madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo dawladda uu kala dhaxeeyay khilaaf xubnahan ayaa ka cabanaya in madaxweyne Axmed Madoobe uusan muddo ku siman 35 bilood oo ah 3 sano aysan ka helin xuquuqdii ay ku lahaayeen maamulkiisa sida mushaaraadkoodii iyo xuquuqihii kale ee xildhibaanku lahaa xildhibaanadaas ayaa shalay Muqdisho kula kulmay qaar kamid ah senatarada laga soo doortay deegaanada maamulka Jubbaland kuwaas oo ay u gudbiyeen warqad ay uga dacwoonayaan Axmed Madoobe qaar kamid ah xildhibaanadaas ayaa caasimadda u sheegay in dacwadooda ay u gudbi doonaan cid kasta oo wax ka qaban karta sida xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya marka laga soo tago mushaar la'aanta ay ka tirsanayaan maamulka Axmed Madoobe waxay sheegeen in jiraan tacadiyo kale oo qayb ka ah dacwadooda kuwaas oo ay ka tirsanayaan maamulkii ay ka tirsanaan jireen ee Axmed Madoobe iyo dawladda dhexe waxa in muddo u dhaxeeyay khilaafaad culus daawadayaal waa naga inta warkaad kala socoteen halku dhig news